السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا شقيمة هي غاية بدنا وكسور دوادة برنامج كيني باقة بالشدة أو كذا أو قبرتين صعب في برنامج كينا باقة بالشدة بريه قدام بي وحين قاعدة لقينا عنتظى أو واحد ضرورية أو ضدك بني آدم يكونوا لي أم بوح ولا نولا ولا بيكونوا لي هاي marka wax weeyaan daruuri waxa muhiimadu ay tahay inuu qofku ogaado waxa afkiisa galaya nafaqo waxa uu leedahay caafimaad waxa uu leedahay iyo waxa naftiisa soo galinayso muddadan ugu dambeysay waxaynu aad u baranay cuntadii dalka ee wadaniga aynu oran jirnay taasoo aynaan marnaba ka gayoonaynin aan filayana guulo badan in laga gaadhay amba sida aanu ku helay warbixin badan oo nooga timid daawadayaashayada markay tijaabiyeen amba ay arkeen amba isticmaaleen cuntadii dalka amba waxaan feedback loo yaqaano waxaan shaki ku jirin in aynu suga waxaynu eegnaaba uu yahay xilli roobaadkaasna dee marka beeru inoo baxaan dhulka khayraad ku bato nimcooyinku way iska fara badanayaan waxaa inoo soo kordhaya dalagii beeraha ka soo baxayay ha noqoto kii midhaha laga goosanayay iyo xubuubka amba ha noqoto kii khudaarta iyo wixii kolka ah caleenta sida salarka oo kale amba sabaaniqa amba waxyaabahaas waqtigan waqtiga aad looga faa'iideysan lahaa marka waa muhiim ay tahay dadka beeralayda laftooda inay ku dadaalaan sida ay bulshada soo gaarsiin kari lahaayeen wax iyaga deeqoon dalalka kale looga keenin ee ay iyagu bulshadu iyadu iskaabto oo ay reer Somaliland iyagu laftoodu wixii dalagooda ka soo baxaya beerahooda ay iyagu isgaarsiiyaan tiyo meelaha qaarkood liinta oo kale liin dhanaanta oo waxyaabaha ugu aad naftu aanay ka maarmin caafimaadkana kaalin weyn kaga jira marka aad magaalada ka iibsanayso waa qaali amba xabada yariba waxa laga yaabaa in lacag badan laga siiyo iska daa wax ka sii badane laakiin markaad beeralayda tagto meelaha beeruhu ay ka baxaan aad tagto waxaad ugu tagaysaa tiyo geedkii inta laga gurayo inta hoosta la qaayistay amba xumaatay ay isleegihiin taasoo xirfad la'aan aanay u garanayn beeralayda laftooda siday dadka uga faa'iideyn lahaayeen amba uga faa'iideysan lahaayeen liintan intaanay khaayisin siday u isticmaali lahaayeen taasoo u baahan iyada qudhadeeduna cilmi gaara iyo sida cuntada food preservation waxa la yiraahdaa sida loo fayadhowro cuntada oo iyada qudhadeedu aqoon u baahan oo filayo in kulli wasaaradda beeruhu ay barto dadka sida ay uga faa'iideysanayaan waxyaabahan la yiraahdo cuntada wixii dheeraad ku ah amba khudaarta oo kale wixii dalaga u soo go'a sida uga faa'iideysanayaan waxa jirta beedka oo dadku aad u jecel yahay laakiin aan aad iyo aad hadda loo helin beed fara badan oo magaalada ku filan amba dalka ku filan ayaa isaguna ay muhiimadiisu tahay wax muhiim ah in ay dadku ka qabeelaan oo had iyo jeer la helo quraac laga dhigto ama casha laga dhigto inkastoo ay jiraan meelo warshado oo digaaga lagu dilaaciyo haddana waxa jira oo had iyo jeer muhiim ah organiga kuwa ah la dhaqan jiray aqal walba joogi jiray oo iyaguna si dabar go'aya oo ay halkoodii bedeleen riyo daaqaya jaad qayilaya iyo laxo aan cad iyo cuutoona iyo caafimaadtoona kaga kordhinayn oo magaaladii wareeriyay markaynu nidhaahno beedku waxyaabaha jirka oo nafaqada gaarka ah siiya fitamiino fara badanna laga helo balse isaga laftiisa maaha un beed baad heshay karso laakiin beedkii waa inaad fayadhowrkiisa aad eegtaa beedka waxa dhici karta inuu marka aad beedka karinayso ma aha xabadii iska jabi inta dhowr isku jabiso isku walaaq laakiin koob quraarada ayaad qaadanaysaa kolba xabad baad ku jabinaysaa waad eegaysaa inay caafimaad qabto miyay khaayistay ma dhiig baa ku soo dhalanaya ma nadiif baa ma caafimaad qabtaa hubi waxaad karinayso khaasatan dumarkaan la hadlayaa koob quraarada ayaad ku shubay ayaad beedkii xabad ugu jabinaysaa xabadaad ogaata inay caafimaad qabto baad isticmaali kartaa haddaad u isticmaalayso quraac iyo haddaad u isticmaalayso keegba laakiin haddii aad dhiig ku aragto waad ka fogaanaysaa waayo xanuuno fara badan oo laga qaado ayaa jira maanta cuntada aynu baranayna kulle waxa weeyaan cunto wada salad iyo maaragtay salatoni siday sheegayaan bal suwada regal iyo cuntada maanta inoo diyaarka ana waynu la eegi doonaa haddii alla yidhaahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسكولكي تايو uga barateen cuntooyinkeeni taxanaha ahaa cunto karinta inagoo badinayna runtii cuntooyinka caafimaadku ku jiro jirka iyo caafimaadka iyo qofka bini'aadamka u fiican si kasta maanta waxaan karsanaynaa salaatooni ay raacin doono insha Allah sharaab aynu kaga maarano labaniyada
oo sidii labaniyada ka dhigan doono fruitsna ku ridan doono insha Allah waa arki doontaan marka bismillaah waxaynu bilaabanaynaa casharkeeni baynu guda gelaynaa insha Allah marka halkan maqligii baa inoo yaala waxaynu ku shubanay in yaro saliid saytuun sidii awalba aynu ku shuban jirnay waxaynu ku darsanaynaa insha Allah kaabashkii baynu ku darsanaynaa hore waxaynu soo karsanay cuntooyin fara badan oo cagaar ah iyagoo saliid lahayn oo kostadii ku jirto maanta laakiin kostadii sharaab baynu insha Allah billahi kariim inaynu gadaal ka soo gelino mooyaane maanta waynu kaabash baynu ka dhiganaynaa insha Allah qaymka kaabashkii baynu ku ridanay saliidii aad inoogu may diirin basashana waynu raacinaynaa yar daboolanaynaa insha Allah saasaynu la soconaynaa insha Allah waynu isku soo noqonnaa inta isku yar islaanaysa insha Allah waayahay bismillaah intuu dherigeenu inoo sii bislaanayo waxaynu halkan ku qoqosanay oo inoogu jira avocado inoogu jira avocadahaasaynu ka dhiganaynaa sharaab biyahaynu ku yaraynaynaa avocado adag insha Allah aynu doonaynaa inaynu sidii labaniyada halkii labaniyada gelino marka mashiinkaynu diidaynaa shanqadhiisii buuxa waan isku soo noqonaynaa insha Allah daawadayaal halkan nagala socotaan waa Saab TV barnaamijkan waxaa inoo fudaydiyey amba inoo suuro geliyey dukaanka Alphatech Sencor ee ku yaala Jigjiga yar sekada Safari waayahay ma sha Allah sharaabkeenu inoo ridqamay adayga iyo quruxda wada arkaysaan qalabkan ma sha Allah inoo fudaydiyey inaynu sidaas sahlan wax u qooshano ama u ridqano waxaan ka helaynaa ama laga helayaa Alpha ما شاء الله شركة ألفا لقيه ليا دوات قرنا إنسان مشين كنا نودن كنا أولين ينقولون عسوبي هاي قف كدي بدك أي مداوم مسدين شري ما أنتنا اللهم لك الحمد ولك الشكر وحين كهلنا وحكستو دي بدل لوجا بحنا قاب تاسين كهلنا مقليجي ما أنت كوش قيسرنا يسقنا يدتوس تونا يسقون جبنينين تسودي كوش قيسرنا دي كنا يسيا كنا يدتوس تونا يسقون جبنينين ما شاء الله ما أنت قلب كلا كوش قينا يوم لما ألفا يا كهليسان waxaynu ku dareynaa baamiye ku darsanaynaa iyo qaji intaas ku darsanaynaa yar baynu intaa ku yar insha Allah ku yar hakinaynaa yar baynu intaa ku yar hakinaynaa insha Allah waxaynu ku dareynaa kaarad karsan iyo baradho karsan هذا كرسان هي بردة كرسان وحنا كده صنعنا بربطوني باير وكشاعد ما شاء الله ما شاء الله نفعل ما تبان عندها وقت عن ما شاء الله نعم نحب وحدة قلوبنا مفعمة نخرج نمضي قدما شعارنا يعمل بيت عزيز احترى الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد وهمم قيمتنا halkan waxay noogu dhamaaday casharkii maanta aynu sameysanaynay salaatooniga waan yar sharaxanay korka khiyaar baynu ka yar sharaxanay kulli way isku yar tagaysaa casharkeeni hore qudrada cagaaran ahayd laakiin way yar kala duwan tahay waayo kii hore kasta iyo bocor iyo hawlo kale ay noogu jiray saliidna kan way ku sameynay walow kaaba mid saliid lagu sameeyay jiray haddana waxbay ku kala gadisan yihiin roodhideeni wadankeena u badnayd ayaynu insha Allah ku isticmaalayna qofka khiyaarkiisa
halkana waxaynu ku sameynay muxuu ahaa avokaadihii oo inaad kaynay khudradii fruitska haynu ku dhex googoynay marka qof walba wuxuu jecel yahay khiyaarkiisa isaga ku sii googoynaya marka waxa laga maarmayaa qofku inuu labaniyad samaysto maadaama ay raadinayno cunto caafimaad badan oo caloosheena jirkeena u fiican sidaasaan u adkeeyay uguna ekeysiyay labaniyadii marka insha Allah halkaas maanta cashirkeena inoogu joogaya biidnillah intiin waqti kale ka kulmayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxaan filayaa inaynu ka boganay Subeeda Regal iyo dariskeedii quruxda badnaa iyo cuntadii tayada lahayd ee aad u macaaneyd amba u wanaagsaneed u aragga iyo afkaba ugu macaaneyd calooshana ugu fududayd qasab ma qofku inuu hilbool cuno iyo wax culus oo caloosha culaysiya mararka qaarkood waxay u baahan tahay inay naftu hesho cunto fudud oo aan nafteeda hadma u geysanaynin khudaartu waa waxyaabaha ugu muhiimsan mid walbana waxa ku jira hadaad gaar ahaantiisa u eegto fitamiin ilaahay u talagalay inay jidhka bini'aadamka ay wax weyn ka taraan sida ogtahayna geed walba wuxuu ka baxay ciid baa laynaga dhoobaynu ka samaysanahay dhoobadii fitamiinkii aynu uga baahnayn oo dhan wixii ilaahay inoo soo saaray khayraad baynu ka helay barnaamijkeenii oo ay fududaysiyeen amba suuro geliyeen shirkadda Alphatech Sincor ee ku taala jigjiga yar sekeda Hotel Safari maanta intaas gabagaba ku yahay waa dugsigii xirfadaha haweenka tayo waxaan halkan Saab TV waxaan aad iyo aad halkan jeclaan oo mahad celiyo dhammaan bahalwadanada Saab TV ay kamid yihiin Cabdiqani oo hadii jeer kamaramaanka Guuleed Maxamed iyo dhammaan bahalwadanada reer Saab TV iyo dhammaan waxaan jecelahay inaan halkan mar labaad uga mahad celiyo dadkii sida gaarka ah noola soo xiriirayay amba facebookyada u dhigayay barnaamijyadayada ee aad uga faa'iideysanayay wixii aad doontaan waa nagala soo xiriiri kartaan Saab TV ee feedback ee gaara wixii kalena naga toos noola soo xiriirsan noola soo xiriiri jirteen barnaamijkeena maanta inta inagu dhan waa Maryan Maxamed Axmed oo idin leh nabadgelyo inta kulanti dambe mar labaad hawada ku kulmi doono iyo barnaamijkii baaqi bulshada iyo inta kale oo aad uga heshaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.